بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلنتي وعن وناكسن مركل كسو دوادا برنامجك إلى قصر بكداوتان channel قرية قد ميديا برنامجكنا waxaan idin kusoo gudbinaa laba qaab oo ah inaanu anagu sheekooyin aan idin la damacnay iskood soo curino oo idin soo dirno si kastaba la noogu soo gudbiyo oo nu sheek ahaan idin kusoo gudbino wixii dhacay ee ugu qosolka badnaa dunidan iyo afkaarta dadku ay noogu soo diraan fariimaha ay noogu reebaan emailka iyo commentiga inaanu idin soo gudbino idin la soo wadaagno kan maanta wuxuu yahay mid aanu idin kula wadaagayno fariimaha ay noo soo direen daawadayaasha ku xidhan barnaamijkan gaar ahaan iyo qariya jiqod haddii aan nuurow barnaamijkana waxaa si wada jira idin kusoo gudbinaya walaalkay nuur maxamed iyo anigoo afkaare maxamed axmed nuurow haddii aan sheekada u horeysa soo qabtay noo soo qabto wuxuu yidhi assalaamu calaykum bahda qari jiqood waan idin salaamay waa khadar oo idinku soo laba noqday sax cabdi khadar oo idinku soo laba noqday sax cabdi khadar sheekooyin hore nala wadaagay Germany buu joogaa wuxuu kusoo koobay magaciisa goobta uu joogana muna inoo sheegin sax haddii aad tahay cabdi khadarkii Germany joogay aad iyo aad baan ku salaamaynaa haddii aad mid kale tahayna soo dhawaayaan ku leenahay wuxuu yidhi sheeko gaaban ayaan idin hayaa nin ayaa wuxuu damcay inuu gabadh shukaansado sheekadana iskuma fiicna ninka ninka shukaansanayo shukaansigu aad iyo aad iskuma fiicna waa yara qura oo shukaansiga maba una aqooni gebi ahaanba ninku gabadhii ayuu wuxuu yidhi walaal see tahay markaasay gabadhii ugu jawaabtay walaal waa fiicnahay markaasuu haddana ku laba celiyey nafta ka waran markaasay tidhi mar labaad ugu laba jawaabtay haddana waan fiicnahay mar saddexaad ayuu haddana ku yidhi walaal nima sheeka aqoon waxa dhimays waa dhibanta mar saddexaadkii baa haddana ku yidhi walaal nafta ka waran wuxuu yidhi ii waran markii horeysay caafimaadka ka waran buu yidhi haddana nafta ka waran buu ku yidhi saddexdii baa isku sii ugu jawaabtay gabadhii oo yaaban waan fiicnahay wada tiri waan fiicnahay bay leedahay wax kale jawaab kale ma la moogta nafta ka waran haddaan ku dhahdo alxamdulillah waan fiicnahay wey waa saas sidee tahay haddaan ku dhahdo waan fiicnahay wey waa laga gudbaa waxaan marka baryadada un weeye waa saas waa isku wada mid angalkaad ka gasho sax ninka u fududahayba ilmaad leedihiin buu nin odhan jiray yani ilmaad leedihiin dadka aad uma garanayaan waa yani il sidee abaad leedihiin yani sideed u taalaan rewaamuna intaa kugu daya see waayo bay yidhahdaan lafihiin waa xariirsan yihin waanaad tiraahdaa marka ninkani baryadadii maanta dhan gabadhi ku wareejiya alla ayaa badnina nin marka yaqaanay ninkan inuu nin saasa yahay oo khariban yaa soo agstaaga markaasuu ku yidhi war gabadha waad seen tahay u badaysaa ma dhakhtar baa tahay ninkan marka intan uu gabadha baridinayo kolba dhinac kaga imanay ma shukaansi uga socdaa shukaansi bartiisa u maraya wuu bilaabay marka ninkaas wuxuu yidhi sheekadaas ayaa igu qosol badnayd run ahaantiina waa sheeko qosol leh ninkan waxa shukaansiga la yidhaha horta wax dhib badan aada weyn ninkan horta la yaabna ma lahayn sax haweenku waa wax laga cabsado weyi sax wujuubay leeyihin laakiin dawlagu waa macnaha ragga qaar ay ka burji koreeyaan iyo qaar ka burji koreeyaan labada isugu jiraan rag qaar aan ka cabsanin baa jira dumarka qaar dumar baa la tasxiir ka cabsanayna maamulka maanta ugu horeysa inuu ka cabsadaan male hadda intaad qol isku soo xidho ama aad jika yar gasho oo dad darabta busto isku duubtaad hoosta ruuxi kala hadlado keliga sax kuma aragto kuma maqasho dad kale kuma arkaan saa doontadaada waxbaad qori aad maanta oo dhan xarf ka bedeli saa rabtaa u akhrista ruux sax kaasugu marka noocan maahan kii hore sax intii la isku fadhiisan baa yaa af Soomaali baa la isku garaaci jiray mahmahyaa la isku wadaarsan jiray marka waa inaan laga mahmahaya badanin baalka shukaansiga loo jiray baal sidaas u culus buu ahaa sax raguna way kala yaqaaneen sax horta ninkan la yaab ma lahayn oo hadii ninkan oo cabdi khadar inoo sheegay nin wax qabsaday buu ahaa laakiin qarnigaas hadda lama joogo hadda waa laga soo gudbo waxaa la helay wax la yidhahdaa miskiin caawiye nimanku markay kale xoog badan yihiin ninkii meel dhagax la jooga waxaa la yidhahdaa miskiin caawiye intuu qaato ku tuuri moogta ku tuuri marka miskiin caawiye waa ninka hata intuu whatsappka meel la galo hadduu doono intuu geeraar dhan soo download gareeyo u sii diri waa saas oo uu qorayo isagu meelaas ka raadi meelaas ka raadi sax geeraar jacayl uu qori wuu soo bixi koobi buu dhig wuu diri waxaa la yidhi maskaxda kaa maqan Google buu ku jirtaa maskaxda kaa maqan
Google kana meesha ma gaadhin waa muna jiro hey marka sheekooyinku saasay yihiin oo ninkaas la yaabmuna lahayn صح aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa aad baan u salaamaynaa cabdikhadar aad baan ugu mahadcelinaynaa afkaadhow bal aan ku socdo warqadda xigta warqaddan waxaa lagu bilaabay assalaamu calaykum dhammaan bahda qari jiqood magacaygu waa cilmi nasiib waan kaa qaadnay cilmi nasiibow oo ka soo qoray buu yidhi magaalada muqdisho macnaha warqadda wuxuu inaga soo diray magaalada muqdisho maalin maalmaha ka mida buu yidhi ayaan reer muqdisho aad baan u salaamaynaa waa dad qiimo le weeye wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida ayaa niman u qamri doonteen buu yidhi macnaha qamri ama khamri khamro cidba saa u taqaano macnaha dadku siyaabo kala duwan bay u yaqaanaan qaarkiin khamra u taqaanaan qaarkiin qamra u taqaanaan qaarkiin qamri baa u taqaanaan macnaha siyaabo kala duwan baa loo isticmaala laakiin waa uun maandooriyahaas la cabo niman ba marka waxay qamri u doonteen buu yidhi kalaab lagu cabo labadii qamri ayay isku dhufteen buu yidhi weliba si aad ah ayay isugu dhufteen buu yidhi macnaha isku dhufteenta macnaha ma labadii khamre isku dhufteen mise way cabeen macnaha way cabeen bay ka dhigan tahay isku dhufashada macnaha way cabeen bay ka dhigan tahay male macnaha labadii khamri yay cabeen si aad ah ayay u mirqaansanaayeen kalaabkii bay ka soo baxeen saacaddu waa 12:35 waxay soo istaageen laamiga si ay baabuur ugu raadsadaan siday u taagnaayeen ayaa taxi soo martay way istaajiyeen taksiilihii baa ku yidhi xaggee idin geeyaa waxaad na geysaa gurigeenna oo ku yaalla meeshaas waxaan ku siinaynaa $15 baabuurkii la raac darawalkii fahan in nimanku marqaansan yihiin oo aysan wax kala garanaynin haa wuxuu isku dayey inuu khiyaamo dabadeedna sheelaraha ayuu ku istaagay sheelaraha ayuu ku istaagay buuhi muddo 5 daqiiqo ah dabadeedna wuxuu ku yidhi soo degta waa la joogaa gurigiinniya hadda ogow bartii uu taagnaa kamuna dhaqaaqana sheelaruhu maqashiiyey 5 daqiiqo ku yarnabay oo gaadhigii yar yidhi isagoo bartii taagan soo degta waa la joogaa gurigiinniya mid ayaa soo degay kuna yidhi waad mahadsan tahay lacagtiina farta ka saaray kii kale baa isna soo degay oo darawalkii bahal dharbaaxa ka soo qaaday indhaha darawalkii wuu naxay wuu yaabay wuxuu is yidhi waad fashilmatee nimankaanna ku ogaayee way ku ogaadeen macnahe maxaad ku maslaxayn talow anaa inaadan barti uga dhaqaan sheelaraha maqashisay ku fahmeen maxaad ku maslaxaysaa yuu is yidhi ninkii marqaansanaa sidii war kale looga sugayey ayuu yidhi buu yidhi waryaa khayr mas-uul baa tahay waa maxay sidaa baabuurka u waday waad nala gedin gaartay 5 daqiiqa ayaa nagu keentay maalige من هالي ذا يقولوا شنطة قاعد ممكن ده سيد باور كنا كانوا كسي ترى هذه هاي علم النصيب sheekada xigta waxay tiri assalaamu calaykum magacaygu waa anzal waa gabadh kuley waxaan idinayaa sheeko qosol leh nin bakhayl ah ayaa waxa ka xanuunsatay xaaskiisa haye markaas waxay dhahdaa waan xanuunsanayaa dhaqtar iiwad haye ninkii ayaa dhaho berri ayaad caafimaadi macnaha dhaqtar hadda ku wadi maayo berri waad iska caafimaadi iska dhaaf maalin kasta wuxuu dhahaa berri waad caafimaadi dhaqtarka iska dhaaf xaaskii ayaa xanuunkii u dhimatay ilaa u naxariisto sorry inta uu dhakhtar geyni ninkii yay dhimatayba way dhimatay markaas buu dhahay alxamdulilah in ay dhimato ayaa qornayd ayaa roonayd buu yidhi kulaha lacagna way iga bixi lahayd saacadna way dhiman lahayd
macnaha haddii ay har ilaah khasaare ayuu iga badbaadshay buri ninkii macnaha kharashna way iga dhammaan lahaa xilligana way dhiman lahayd golleyba wayba qorey buri aniyo bakhaylkuna qanaacad daraaye markaas baad darbiga kusii qoray way tiri la socda wax tacsi iyo sab ah ma jirto ma kama lagama tacsiin karo mana sabna lama soo doonan karo hadda sabta yani hadana neef loo dana kharash baa ku baxaya ha wax tacsi iyo sab la yiraahdaa ma jirto ma jirto marka sheekadaas ayaa u qasab badnay Betri Anzal oo aan soo sheegay iyaduna aad baan salaamayna Anzal Cabdiraxmaan oo aan ku sii socdo ninkan sheekada inoo soo qoray isku magac baatin Cabdiraxmaan baa leeyahay Cabdiraxmaan soo dhawday ha wuxuu ku bilaabay mid ciyaal afraad ah oo magaalada ku wareeray ayaa saaxiibkii oo shukaansiga xariif ku ah tana shukaansiga bay la xidhiidhaa saaxiibkii oo shukaansiga xariif ku ah ku yidhi saaxiibow ibar sida haweenka loo shukaansado saaxiibkii ayaa yidhi waxaas dhib ma lahaan ee qof shidan raadso haa gabadh shidan shidnidaasi waa waxyaabaha hadda ku cusub soomaalida haa gabadh qurux badan bay ka dhigan tahay gabadh qurux badan raadso oo qurxoon kadibna qaab siyaasadaysan ku gal micnaha qaab farsamaysan ula hadal xirfadaysan haa si ree magaalnimo haa si ree magaalnimo ula hadal wey haa oo macnaha tuulijooga iska dhigin haa xariifkii maalintii ku xigtay ayuu basraran soo raacay wuxuu arkay gabadh meel fadhida intuu soo ag fadhiistay ayuu iljabiyey macnaha isha wildhaq uga siiyey kulaha uhi sidii wax kale looga sugeeyey dagaalkii ogaadeenka iyo Ethiopia xagee uu marayaa sharafay deeman dhashii gabtay ninkaas siyaasadda si kale u fahmay higaasi buu yidhi siyaasadaha ayuu isku qalday ninkii yidhi nin reeba maaha gabadh wuxuu ugu sheekeeyuu garan waayo oo ag istaago markaas ku dhigayay yani lahjadiisii wuxuu ku yidhi shalay dibigiin iyo dibiga naga istagaalay bacda dibigayn baan dibigiin u bajiyey يعني تيجي نجيب أنت بيجيني وافعلي أمري أما حاول ترى مراسي هاي داوي أرجع نكاسة فرسمة داوي ممتاز أدي أدو بتسي شكل حتى دي أنا سيقول منه وأنا السلامي بعد قرية جقود مقعيب وعد فتاح مهد برنامج كذا قصر وكنت هاي أدبان روحي سيا واحد جري لبن أو ولا لا مد ورير مي من ورير مقال waxaa soo safray kii magaalada joogay oo soo aaday walaalkiis isaga oon soo gaarin ayuu maqlay wadaad wacdinayo waa uu dhageystay wuxuuna go'aansaday inuu masjidka aado si uu u tukado salaada markuu weysaystay oo uu istaagay ayuu simbirixday wuuna kufay wuxuuna ka jabay boodada subxaan Allah soo qaaday masaajidka ugu jabay masaajidka taylaski shuu ku weysistay intuu siibtay iyo lafta dheer ka jabay gurigii baa la keenay ninkii walaalkiis waxaa maqlay walaalkiis wuxuuna u yimid wuxuuna weydiiyey say wax kuu gaareen markaasuu ku yidhi wuxuu u sheegay oo uuna ku yidhi waxaan ku weydiiyey kii yacni bukiya wuxuu sheegay kii kale wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyey abootada yaa dilay kii dhaawacaa baa yidhi eebbahay wuxuu yidhi maxay ka hadlaysa abootada marka hooyada ka wada abootada ruux weyn oo xagga hooyada baan u malay da'diisu sarreysa laakiin hooye ma aha hooye kasii weyn abootada ayaa dilay eebbahay buu dilay maxay ka hadlaysay maxaa ka hadlaysay buu waxna buu okay wuxuu yidhi adooga ayaa dilay adoogna waa aabaha wax si kasii weyn baan u malay eebbahay buu yidhi maxaa ka hadlayay buu waxna buu habartaana buu yidhi eebbahay taas hooyadii habartaas hooyada xag
ka hadlaysa video waxba lagu yidhi haye asaad inya waalan tahay gurigiisa u gashay dowladda tiriya inaad jabtay ahayd oo naftaba kaa baxa imaanka laga waruuxa baleegniyo macnaha wuxuu aad uga dhigayaa macnaha masaajidkiisii iyo gurigiisi yaad ku doonatay dadkii leedahay oo dhan buu aad uga dhigaya marka ninkani nin jaahil u ahaa ilaahay soo hanuuniya ninkaasi waa runtii waa sheeko la yaab leh astaqfirullah macnaha sheekada saan ka fahmay afagaadho ninka odhanaya yaa dilay waxayna waa kii macnaha martida loo ahaa macnaha ninkii jabay ee baadiyaha ka yimid masaajidka ilaahay dartii u tegey aniga masaajidka u dhawaada bafooda gelin halka dambe ilaahay okay waa sheeko qosol badan haddii aan bar halka ku dhaafno sheekadaasi aan jaleeco sheekada ku xigta sheekadan waxaa lagu bilaabay afakaadho assalaamu calaykum waan idin salaamay afakaadho iyo nuur salaamullaahi waan kaa qaadnay wuxuu yidhi waa sufyaan maxamed waxaan idinla wadaagayaa buu yihi sheeko yar oo qosol badan nin baa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu tegey goob carwo ah oo xayawaanka lagu xanaaneeyo markaas ayaa wuxuu arkay intii xayawaan ahayd ee meeshaa joogtay oo wada qoslaya markii laga reebay buu yihi hal dameer talo dameerka ma aamusi hal dameer moogta meesha xayawaan badan baa jooga marka xayawaankii oo wada qoslayo arkay iyo dameerkii oo aamusan oon qoslaynin ninkii wuu iska baxay isaga oo yaaban balse maalintii dambe ee ku xigtay maalintaas ayuu carwadii kusoo laabtay wuxuuna arkay buu yihi dameerkii oo keligii qoslaya dameerkii shalay aamusnaa oo keligii qoslaya ayuu maanta arkay buu markaas ayaa wuxuu weydiiyey ninka carwada lahaa adeer sidee ku dhacday dameerka maanta keligii ayuu qoslayaaye shalayna wuu aamusnaaye marka ayuu ninkii carwada lahaa wuxuu ugu jawaabay shalay ayuu daanyeerku macnaha daanyeerka ka midka xayawaankan meesha joogta dabcan daanyeer baa ka mid a daanyeerkii marka ka midka xayawaankan ayaa shalayto sheeko qosol ah xayawaankan kale uga sheekeeyey buu yaa shalay uga sheekeeyey buu yihi marka maanta ayuu fahmay buu dameerkii sidaas ayuuna maanta keligii u qoslaya mogtay daanyeerkii daanyeerka horta waa bahalkani caad daran oo jin ah xayawaanka waxyar suuq wey wallaahi mid magaalo aan joogi jiray oo yaraa oo dee adugu ciyaalkii reerkan ka mid noqday wax uunan sameyn male waa joqoraaga xayawaanka marka marka shalay buu sheego qosol leh oo ila qosolushu uga sheekeeyay xayawaanka way ku wada qoslay marka dameerka marka muuna fahmin wuxuu ninkan sheegayo muusan fahmin shalay maadaama uusan fahmin maanta intoo dhinaca kusoo jirtay maanta ayuu fahmay marka sheekada xigta ayaan u gudbayaa sax ninkaas aad baan ugu mahadcelinayaa aad baan u salaamaynaa sufyaan sheekadii sheeko xigmadaysan bay wuxuu yihi ninkani assalaamu calaykum magacaygu waa muxiyadiin cumar waxaana barnaamijka kaga qayb qaadanayaa mid reer miyi ah ayaa wuxuu rabaa inuu iska bedelo password facebookiisa wuxuu wacay saaxiibkii oo isaguna aan waxba dhaamin buu yidhi oo mid aan waxba bada dhaamin laakiin yar uu isagu wax ku toomeeyey labadii nin ayaa waxaa dhib ku noqotay buu yidhi inay facebook passwordka bedelaan facebook passwordkan yaan kuu sheegaya password oo dhanba waa horta dhib badan bedelaadiisu sababtoo ah mar waxaa la rabaa in xaraf uu weynaado xarafka u horeeya uu kabitaal ahaado
mar waxaa la rabaa inay tira ku jirto qasab mar waxaa la rabaa inay tira ku jirto must tahay inay ku jirto mar waxaa la mar waxaa la rabaa inay si ka badnaadaan ha marka waa musiibo weeye macnaha dadka aad aqoonta ugu leh internetka iyo waxaas markii hore lagu laba celin ha mar kan cusub baad haddana laba qori ha marka waa wax shidaa weeye marka nin aan xariif ku hayna inuu ku dhibtan waa ninkii reebaadiyaha iyo ninkii aan waxba dhaamin saaxiibkii ah arrinta dib bay ku noqotay markaas ayaa waxay ku qoreen 1 2 3 4 5 6 adoo hal ilaa 6 iyo gaarsiiyeen iyo qoreen oo tira ah haye markaas waxa u soo baxday your password must be minimal 8 character inuu 8 xaraf gaaro waxa khasaba in uu 8 xaraf gaaro haye wuu akhriyay ninka showde waxba farta uga yar baxneen mid ayaa soo baday maanta waxaad noo daalinaysaa weeyii kulaha war ku qor 8 geli hal laba saddex afar shan lix iyo 7 toona lama ogole saaxiibadaha 8 bas ay ku qoreen waa 8 bas ah hal 8 bay meesha geliyeen ni 8 chapter bal ugu moogtahay 8 buu shuqsi iyagoo ku doodaya lama ogola tiradan kale oo dhan 8 bas laga rabaa waxa u soo baxay buu yiri your passport must be minimal 8 chata digit haye wuxuu yiri ka dhig buu yiri 8 oo qoraal ah oo T E I G H T 8 oo qoraal oo Ingiriis saasay rabaan haye 8 kii baa dana qoray meesha anaa ma fahmay kulaha uu yiri kii kale رجعنا كواحد فايستا. أي تو أصلتها يقرأ حرفها. أنا بفهمه يقول إنك ما نوريني. يعني ما دامني كانوا يده. هو قليل. هذانا وبيسوي بيويسي. ويقول إنه ما كي صاحب هذا إلى أي ساعة. ولا رفتين. ولا رفتين باسورد كده بدران. نكان وانين ما كي يقطع نصار ما لينا يو. حكتو ذا كوار هي. والله واي إن الله رفتين isweydiin ba male laakiin Soomaalida waxay ku runtaa taqaana markii waxaan oo kale ay ku dhaco computerku waxbuu ku soo qoray wixii uu ku soo qoray hadaad fahmi weyso ruux baa la weydiiyaa kugu dhaama war hadduu saa soo qoro seen dhaxa ama luqadda kugu dhaama wixii kale kugu dhaama marka laba asdaamin baa isale laba asdaamin oo private ka dhigtaan malay yaa isale aad baad mahadsantahay afkaadho adi iyo saaxiibka sheekadana la wadaagayba Muhidiin sheekada aan u maleynaya inay dhankayga ugu dambayso ayaan soo qabanayaa sheekadana aad bay iga qoslisay waxaan u maleynayaa inay adiga iyo daawadayaashana iga qoslin doonto sheekadan waxaa inoo soo diray horta qof lagu magacaabo Abshir Kamaal meesha uu joogana noomuna sheegin aad baan u salaamaynaa Abshir Kamaal kulle email bana lagu soo diray Abshir Kamaal wuxuu ku bilaabay sheekada hadda ka hor ayaa nin dabaal ah ama nacas hadba saad u garanaysaan ha oo aan sidaas diinta u aqoonin ayaa lacag u baahday buuri kadib wuxuu soo galay buuri masaajid si uu u duceysto oo ilaah wax u weydiisto kadibna ninkii odayga ahaa ducadii ayuu bilaabay ilaahow lacag isii ilaahow sidaas ii samee ha yuu ducadiis ku bilaabay ninkii ducadii markuu dhammaystay ayuu warqad yar soo qaatay buuri oo meel agtii meelaha jawaabadii waxay ugu jirteen warqad yar buu soo qaatay buuri wuxuu ku qoray buuri warqadii ilaahayow jawaab baan kaa sugayaa إلا الماشي إلهي بكون بريه موقت وأنا قولي إلهي ومساجد مركب وحقوق قرى ورقدي إلهي وجواب بان كاس سجية ورقدي مركب أنت حقوق قرى يلبي هذا كتاب ماشي يلا كتاب هذا وقف كاي مساجد كيالي يوم مت سواق هذا ورقدي باير نحجري ورقدي إلا الماشي جوا وقولي إلهي كتابنا وكتابك إلهي وحاو بري أنا وإلهي وسؤالين يا مرك إلهي كل يوم ما شنو قليين أرك يعني يدي سكوتشرت
marka uu caqiido ninkaas ma caqiido xumayn markii dhinac laga fiiriyo aad u fiican buu ahaa ha doqonka kitaabkii buu marka kitaabkii buu meesha yaalay ayuu warqadii dhex geliyay buu shuq buu siiyey ha shay ka qoslisay mid ciyaal xaafadda ah buu oo diblo ahaana meel dheer ayuu ka arkaa buu ciyaalka xaafadna ha ayuu ka arkayay buu markuu odaygii baxay ayaa kii ciyaalka xaafadda ahaa kitaabkii ka fiiriyey buu wuxuu ninku geliyey markuu fiiriyey ayuu arkay buu qoraalkii ahaa ilaahay uu jawaab baan kaa sugayaa isla markiiba wuxuu ku qoray buu warqadii waxba kuma haynee nooga bax masaajidka gaari kugu dhacday ugu warqadii waxba kuma haynee nooga bax masaajidka isla warqadii meesha buu ugu celiyey odaygii yaraa baa 2 isbuuc kadib soo laabtay buuri oo fiiriyey kitaabkii hase ahaatee wuxuu arkay buuri warqadii oo ay ku qoran tahay war waxba kuma haynee inooga bax masaajidka odaygii ayaa isla markiiba kitaabkii intuu iska dhigay cararay buuri oo orod masaajidka ka baxay isagoo sii ordaya ayuu albaabkii masaajidka haddana ku kufay buuri bab kolkaas ayuu dhahay buuri ilaahay oo masaajidka astaqfirullah ilaahay oo masaajidkaaga waan kaaga baxee ha igu kufinin buu yidhi sheekadaas horta xaggii ugu dambeysay runtii waa sheeko qosol badan ninkaasi nin wuxuu ahaa iska miskiin oo lacag la wuxuuna ahaa diinta yuusan aqoon buu lahaan laakiin nin caqiido fiican buu ahaa sababtoo hadduu ilaahayna wax weydiisto ilaahay baryey inuu ka helina uu niyeystay macnaha nin caqiido xun muuna ahayn laakiin waxaa dhiblo weyn karqaba ahaa midkan ciyaalka xaafadda ama nin horta ciyaalka xaafadda dhib badana والله ciyaalka xaafadda markii horta ciyaalka xaafadda aad bay u dhib badan yihiin magaalo kastana way leedahay laakiin waxa ka dhisan yihiin marmayo ragooda ugu waaweyn jooga xamar waa saas marka sheekada aniga dhankayga ugu dambaysa sheekada waxaa inoo soo diray xasan sheekh maxamed wuxuu ku bilaabay nin baa wuxuu isticmaali jiray tubaako ama buuri ninba siduu u yaqaano tubaakada waxaa gada ama iibisa sododii gabadhu qabooyadii haddaba maalin ayuu aad u xaraaraday ninkii isagoo geel raacay markuu imaaday reerkii ayuu xaaskiisii inta lacag u dhiibay ku yidhi orod iisoo gad tubaakadii hooyadaa haysay tubaakadii hooyadaa haysay iisoo gad haye sodohdii haye intay gabadhu maqnayd ayuu sugi waayey ilan waa nin xaraara dishay haye wuxuuna imaaday gurigii sodohda isagoo qaatanaya wuu kasoo daba tegay macna ha sax gabadhiisa kuma maqnayn macna xaaskiisa maqnayd intuu sugi waayey uu ka daba yimi haye haye iyada oo sodohdii ay meeshii ku beegayso baasha ku ridayso tubaakada waxaana lagu beegaa weli ama lagu miisaa jafaqo jaqafada yararka jaqafo ama qajafo sax waa siyaabo badan bay macnaha loo yaqaana ha baashan marka tubaakada waa caleen oo haddii aad nabto yani way nabmi weelkuna waa weel gudale lagu ridayaa sax iyadoo beegaysu si soo socday u garab istaagay wuxuu fadhiistay sodohdii isaga wuxuu ag fadhiistay sodohdii isaga oo boodaya xaaskiisii ileen waa nin xaraara maanta dishay markaasuu sodohdii inta kalida ka gujiyey ku yidhi naadada suuqa ku noqday sodohdii kalida yub ka siiyey sodohdii inta gujiyo ku yidhi naanab ku dhe
صدقني انت كنت اي كنت لي ورهوغا وانيغا haye kadib ninkii wuu cararay Haye. reerkiisina wuxuu ka maqnaa buri muddo 2 sano yaxya dartiis inna lillahi aqoba ala ku sadadii buuru guji marka naftani maxay ka macna tahay yani hadii la nabo oo la yani la nabo wuxuu qaadayaa waxyaabaha bahal la dhaho taqaana xashar ama qaxwaha kii laga yiraahdo qaxwaha laga dhigi jiray bunka caleentiisa waa baal bunka caleentiisa haddaad nabto koobada lagu meesayo inta labadeed buu qaadi macnaha haddaan la nabin intuu qaadi lahaa labadeed buu qaadaya haddii la nabo sax balka la caleenta shaaha oo kale iyadana haddii la nabo sidoo marka waxyaabaha nabma waxyaabaha buurigana sidoo kale isagana buurigana sidoo kale sax macnaha waa caleen isaguna waa caleen marka tan uu nab ku yiri waxay marka unna uu leeyahay yani si ay igu badato macnaha dhowr toddobaad oo hay marka hadalkan hoos u dhigayo wuxuu islaaha maqashiin sodode tan sokay marka sododiisa oo dhankan kale uma fadhida haddii tani ay xaaskiisa ahaan lahayd isagu ma uuna rabin sodod maqashay wax islaamka gabadhaada ku gabato haddana xalaal adiga ka taakroonay shood badan baa inuu ku carsan 2 sano iyo reerkiisa ka maqan inna lillahi wala horta waa sheeko dhib badan oo qosol badan ninkaasi wuxuu sameeyay horta 2 sano yaxnin la maqnaa waa qiso cajiib ah sababta dhaqankeena markii hore waayadii hore ama dhaqankii baadiyaha oo kale waxay ahaan jirtay macnaha wiilka iyo sodohdii meesha iska gaadhaan waxay ahayd meel balaay ka dhacday sababta waxaan maqli jiray nin baa yiri sodohday baa dharbaaxday kaasa la yiri meesha sodohda ka dharbaaxday maxaa ku geeyay meesha sodohda ka dharbaaxday gardarada isaga la saaray sodohda meesha ka dharbaaxday maxaa ku geeyay sababta waxa la aamini waayay isaga sodohdii isgaadhaanba hadda laakiin dhulkan aan joogno iyo dhulkan maaragtay hadda eridan suwaamadan iyo dhulkan loo aad uma kala cabsadaan sodohdii wiilku wada shaqaynayaan oo maxaa la dhihi jiray caawa dhan buu u riixriixayaa hooyada ku haynaya dadkaasi laakiin maysan isgaari jirin marka aad baan u salaamaynaa xasan sheekh maxamed carab oo aan u malay inuu inoo soo diray sheekadii ugu dambeysay toddobaadkan daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijkeenii toddobaadkan oo aan idiin soo jeedinaynay anigoo ah nuur maxamed iyo weliba saaxiibkay oo fakaadha maxamed axmed waxaan u mahad celinaynaa dhammaan daawadayaashii nagala soo qayb qaatay barnaamijka ila qosol ee qari jiqood kuwii sheekooyinka xiisaha badan noogu soo diray emailka iyo kuwii weliba commentiga noogu reebay iyo weliba dhammaan daawadayaasheenna waan u mahad celinaynaa dhanka kaamarada waxaa naga saaciday oo muuqaalka noo duubayay axmed yuusuf sheekh cabdi inta aan toddobaadka dambe sheekadan sheeko la mid ah haddii eebba idma ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabaadiino wixii sheekooyina ee aad haysaan sidaan horeyba idinku sheegi jiray waxaad noogu reebi kartaan qaybahan hoose ee commentiga haddii kale waxaad noogu soo diri kartaan fariimihiina ama sheekooyinka aad noo haysaan ee ila qosol gaar ahaan kuwa qosolka badan ee aad xiisaynaysaan inaan barnaamijka ka soo dayno emailkeena oo aad ka arki kartaan shaashadan dhabarkeena ka muuqata inta aan barnaamijka mid lamid ku kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa guud ahaantayo sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu